kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waa saaxiibkiin maxamed Abuukar Baari oo idin leh barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha qodobada aan ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah ciyaaryahanka Kimmich oo 6 bilood ee ugu dambeysay ee xilli ciyaareedkiisa kooxda Bayern Munich contractkiisa la galay heshiiska ayaa waxa uu dhamaanayaa season-kan dhamaadkiisa ama xilli ciyaareedkan markii uu dhamaado haddaba Kimmich waxa uu noqon doonaa ciyaaryahan free ah ama markaasi Bayern ay heshiis cusub soo bandhigto ama oo koox kale ku biiro sidoo kale ciyaaryahanka reer Paraguay ee Diego Leon oo maanta Manchester United u maraya tijaabada caafimaadka ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena inta socdo sidoo kale Pedri oo heshiis cusub laga yaabo inuu markaa u saxiixo bisha soo socota kooxda Barcelona Walker oo ka tagaya kooxda Manchester City kadib markii uu dalab u soo bandhigtay Manchester oo ka taga kooxdan waxa durbaba soo baxday in kooxda AC Milan ay wada hadallo la galeen kooxda City iyo wiliba ciyaaryahanka Walker Omar Marmushi iyo City xaalkooda ayaa markaasi idinku soo gudbin doona inta uu socdo barnaamijkeena ciyaaraha sidoo kale kulanka derbiga ah ee kooxda Manchester United iyo wiliba Arsenal oo dhaxmari doona qodobadaas iyo qodobo kale ayaa idinku faaqidi doona inta uu barnaamijkeena socdo fadlan haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka oo sii share gareey si uu meel dheer u gaaro asxaabtaada ay qayb kaga noqdaan kuwa daawanaya barnaamijkeena iyo warbixinadeena halkan aan idinku soo gudbino fadlan si share gareey oo like iyo commentiga hanaga ilaabin mahadsanid waa hagaaga aynu ku bilaabo kooxda Bayern Munich ciyaaryahankooda qadka dhexe ayaa waxa xilligan la gaaray 6 bilood ee ugu dambeysay heshiiskiisa oo kooxdaasi ku joogo waxaana ka dhacayaa hadii uu dhamaado xilli ciyaareedkan hadda lagu gudo jiro 2024-2025 haddaba markii la gaaro bisha 6 sanadkan waxa Kimmich dhacaya heshiiskiisa gabi ahaanba waxaana noqon doona ciyaaryahan free ah oo kaga tagi kara kooxdaasi bilaash ah ama si xur ah haddaba Kimmich waxa markaasi uu gudagalay 6 bilood ee ugu dambeysay heshiiskiisa kooxda Bayern Munich waxa la gudboon inta uusan gaarin bishaasi 6 in ay markaa ay heshiis cusub soo bandhigaan ay ka saxiixdaan qandaraas cusubna ay la galaan ciyaaryahan Kimmich haddaba Kimmich waa ciyaaryahan aad u wanaagsan kuna fiican dhan kasta ee qadka dhexe ee ciyaaryahankan haddaba kooxo fara badan ayaa iminkan waxa soo galeen loolankiisa oo ay doonayaan inay markaa la soo wareegaan markii la gaaro bisha 6 ee sanadkan markii xilli ciyaareedkan uu dhamaado si markaa ay u helaan suuqa xirta ah ee kula soo wareegaan sidoo kale waxa maanta tijaabada caafimaad u maraya kooxda Manchester United ciyaaryahanka reer Paraguay ee Diego Leon ka oo dhawaan ay la soo wareegeen kooxdan haddaba maanta waxa uu ka soo degay magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska waxaana uu sii kici timi doona magaalada Manchester oo ay markaasi oo ah meesha uu ku gali doono tijaabada caafimaadka ee kooxda Manchester United haddaba ciyaaryahankan waxa uu kaga soo kordhin doona qaybta dambe difaaca waliba dhanka bidix ee difaaca ayaa markaasi laga yaabaa inuu xoojiyo sida uu sheegay macalinka kooxda Manchester United haddaba ciyaaryahankan wuxuu ku soo kordhaa iyo waliba qodobada dambe barnaamijkeena aad ku daawan doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay si follow gareey page-ka oo share gareey oo like-ta inoogu dadaal mahadsanid sidoo kale Pedri ayaa isna waxa uu dhacay qandaraaskiisa waxaana la rajeynayaa in bisha soo socota lagala hadlo ama kooxda Barcelona ay u soo bandhigto heshiis cusub oo ay qandaraaskiisa ku kordhinayso Pedri waxa uu soo gudagalay xilli ciyaareedkiisa ugu dambeeyay kooxda Barcelona maadaama heshiiskiisu uu yahay mid dhacay gabi ahaanba waxa la rajeynayaa in la cusboonaysiiyo kooxda Barcelona oo xaaladeedu ay tahay mid aluusahla ah ciyaartoyduna ay ku adag tahay markaasi ay sii joogaan kooxda Barcelona kadib markii la liigaha oo culays fara badan oo soo saaray kooxduna ay noqotay mid aanan awood u lahayn inay soo gadato ciyaartoy haddii ay soo gadatana aanan u helinin fursad ay ku diiwaan geliso xilligan kadib la liigaha oo culays aad u fara badan soo saaray kana ganaaxay in ciyaartoy ay gadato ama loo register gareeyo kooxda Barcelona
Kyle Walker ayaa sidoo kale inta waxa uu soo bandhigay isbuucan kooxda Manchester United oo waxa uu sheegay inuu kooxda Manchester City andhehe waxa uu sheegay Kyle Walker inuu ka tagayo kooxda oo heshiis cusub maanta la arkayay in AC Milan u soo bandhigtay. Walker ayaa la filayaa inuu markaasi ka tago kooxdan waxaana halkaasi ay kooxo fara badan loolan adag ugu jiraan sidii ay Walker ku qaadan lahaayeen. Waxa maanta la arkayay AC Milan oo wakiilo soo dirtay magaalada Manchester ee dalkaasi Ingiriiska si ay markaa ay ula hadlaan oo la xaajood kooxda Manchester City iyo waliba ciyaaryahankan wakiilkiisa. Haddaba AC Milan ma laga yaabaa inay markaa la wareegto ciyaaryahan Kyle Walker oo ma noqon kara Walker ciyaaryahan markaasi xil ciyaareedkan ku biira kooxda AC Milan ee dalkaasi Italy ka ciyaara. Omar Marmushi ayaa asna sidoo kale inta kooxda Frankfurt iyo waliba ciyaartoyda kooxda wakiilada ka socda Manchester City ayaa iminkan wada hadallo oo wax ku ool ah meel fiican u maraya sidii loola soo wareegi lahaa ciyaaryahankan oo ku noqon lahaa ciyaaryahan Manchester City ama Manchester City oo ka mid noqdo. Haddaba Omar Marmush ayaa waxaa la sheegayaa in wakiilka oo Umar iyo asigaba ay markaasi wada hadallo la galeen kooxda Manchester City oo ay isku afraaceen heshiisaadka hoosaadka ah ama personal contractiga ay isku afraaceen. laakiin kooxda iyo waliba kooxda kale Frankfurt iyo Manchester City wali aysan waxba isku afraacin oo macnaha waxba ku heshiinin. Haddaba waxa maanta ay sheegtay kooxda Manchester City in wakiilaadka ka socday Manchester City iyo waliba kooxda Frankfurt ay wada hadallo wax ku ool ah ay meel fiican u marayaan. Haddaba waxaan fili doonaa qodobkaas iyo wixii ku soo kordha ciyaaryahankaas inaad dib ugu soo daalacan doontaan barnaamijkeena inta uu socdo iyo barnaamijka xiga ayaanu markaasi dib idinkugu sheegi doonaa hadduu Eebbe subxaanahu wa tacaala yiraahdo. Sidoo kale waxaanu ugu dambeyntii ka hadli doonaa kooxda Manchester United iyo waliba kooxda Arsenal oo martigelinayso. Manchester United ayaa FA Cup-ka ay ku ciyaari doonaan wareegiisa saddexaad Emirates Stadium. Haddaba Manchester United oo maalin dhaweeyo laga soo badiyay hadda laga yaabaa in mar kale maanta ay caawa ay ka badiso kooxda Arsenal. Man United marada ay cishan doontaa oo Arsenal ay ka raaci doontaa oo ay ka aarsan doontaa. Haddaba kulamadii ugu dambeeyay Arsenal ayaa badinaysay oo awoodda dhanka Arsenal ay jirtay inkastoo taageerayaasha iyo waliba ciyaartoyda u ciyaarta kooxda Manchester United ay mar waliba dhahaan waanu ka badin doonaa waanu ka badinaynaa oo taa ay markaasi noqotay. Haddaba kulanka waxaan arki doonaa wixii uu ku soo dhamaado iyo waliba waxa laga yiraahday inta uu socdo barnaamijka. inta kulankaas ayaad ku arki doonto ku daaban doontaan wixii ku soo kordha barnaamijyaadkeena xiga. Haddaba waa saaxiibkiin Maxamed Abuukar Baariyo oo idin leh haddii aad nala soo gaarteen ilaa dhamaadka fiidiyogan fadlan follow gareey page-ka oo si share gareey si uu gaaro asxaab fara badan muuqaalkeena meel dheer uu gaaro kana mid noqo saaxiibada sida qaaska ah ugu xiran barnaamij page-keena oo hela mar walba wararka iyo barnaamijyaadka soo dhaca. mahadsanid. waa mar kale saaxiibkiin Baariyo leh tan iyo inta dib ugu kulmi doono barnaamij cinkan oo kale inta waxaan leeyahay sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.